saaxiibka ugu khatarsani dee waa labada isqaba waa laba qof oo noloshaba iyagu isku darsaday keeda muuqadiyo keeda qarsoonba nolosha isku darsadeen idan labadaa qof waa laba qof oo wax kasta iska kala og gabadhuna ninkeeda si fiican bay u taqaanaa yacni haweenaydu ninka qaba si fiican bay u taqaanaa aan dadku u aqoonin ninkuna xaaskiisa si wanaagsan buu u yaqaanaa waa saaxiibbada isugu dhowe israadeeya haddaad gabadh khayr badan guursato khayrkay kuu horseedi haddaad nin khayr badan guursato khayrkuu kuu horseedi haddaad gabadh shar badan guursato sharkay kuu horseedi haddaad gabadh nin shar badan guursato sharkuu kuu horseedi sida awgeed ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ragga waxaa la faray dumarka inay ka guursadaan mid khayr qabtoo diin leh nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadha 4 sababood baa lagu guursadaa yacni sababaa lagu guursadaa 4 baa ka mid ah xoolaheeda iyo reerkay ka dhalatay iyo xasabadeeda ama statuskeeda yacni iyo quruxdeeda iyo diinteeda buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigu tale wuxuu ku bixiyey inaad diinta iyo dhaqanka dooratid waayo haddaad qurux ku guursato lacalla quruxda tan inaanay dhammaystirnayn ee dhaqan xum oo dhammi la socoto waa qurux badantay waa se akhlaaq xuntay waa qurux badantay waa se basari tahay waa qurux badan tahay waa se musrifo tahay dhaqaalo xun tahay waa qurux badan tahay waa se rabshad badan tahay waa qurux badan tahay waa se diin xun tahay miaal aan idin siiyo waxaa jiray nin taabiciya oo ay yidhaahdaan muxadid faqiiha buu ahaa diin fiican oo weliba manhaju ahlu sunna ku sugan nin se qurux badan ma ahayn bay yidhaahdaan ninkaasi in adeertiiyo qurux badan bay seleen isagoo nin weyna cimraan ibnu xitaan waa nin bukhaari riwaayaadka axaadiista qaar ka mida uu bukhaari ka warinayo waa raggii wax ka warinayey caaisha iyo abi muusa alashcari iyo ibnu cabbaas ayuu ardadoodu ahaa taabici weyn buu ahaa in adeertii oo qurux badan oo xaruuriyada yacni khawaarij ka tirsan ayuu hungureeyey dabeetana wuxuu is yidhi in adeer tahay oo qurux badan intaad guursato madhabkan khawaarijkii ay haysatana ka saaroo diinta ku soo dara ahlu sunnaa keen si fiican aad u ahlu sunnayside cimraan ibnu xitaan markuu guursaday gabadhii isagii bay suldartay aakhirkii iyadii baaba khabiirad noqotay oo xaggiisa ku soo dartay cimraan waxay gaadhsiisay inuu ka mid noqdo khawaarijta waa ninkii tirinayay gabaygii markii cali ibnu abi aalib ibnu muljim markii cali la dilay kii khaarijiga ah salaad subax isagoo dad tukanaya uu midi geliyey cali markii la dilay dilkii cali ibnu muljim uu dilay salaad malaa inaanu ku jirin baaban u malaynay calaa kulli xaal markii cali la dilay baa warku soo gaadhay dabeetana gabay buu tiriyey gabyaabuu ahaa shaacir weyn oo gabayga la yaqaana buu ahaa waa gabaynimadiisu waa ninkii xajaaj markay qolo khawaarija gabadh baa jirtay khazaal la odhan jiray oo khawaarijta ka tirsanayd oo goobaad dagaalka tegi jirto oo dagaal badnayd shaybaan nin la odhan jiro isna khatara baa qabay oo khawaarijtu niman aad u dagaal badan bay ahaan jireen oo la yidhahdo xajaaj baa beri kabaa intay meel u gashay ka baxsaday oo ka baqay dabeetana waatuu xajaaj gabayga u tiriyey gabaygan macruufka la yidhaahdo asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun waa cimraan ibnu xitaanka ninka tiriyey cimraan ibnu xitaan cimraanka kani waa kii gabayga tirinayay markaasi isagoo cali dilkii la dilay ammaanaya leh yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ila liyabluga min da lcarshi ridwaana inii la adkuruhu xiinan faaxsabuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana kii cali dilay buu ammaanaya wuxuu leeyahay darbadii uu ku dhuftay nabarkuu ku dhuftay cali oo aanu wax kale uga jeedin waa darba taqi ka timi buu leeyahy
ilaahay wejigiina wuu ugu dhuftay cali isagoo raadinaya inuu raalli ahaanshiyaha rabbi ku gaadho waxaanan u malayn buu yidhi maalinta aakhiro kuwa ugu miisaanka weyn la aakhiro inuu ka mid noqon doono buu leeyahy cali dilkiisuu ka dhigayaa wax lagu janno taga inay tahay ninka kani waa ninkaa muxadidka ahaa ee faqiiha ahaa ee caaisha ibnu cabbaas abi muusa alashcari wax ka dhigtay ee ardadiisa wax ka warinaysay qataada yaxya bnu abi kaiir ee ibnu siriin ayaa ka mid ahaa raggii isaga xadiidka ka warinayey laakiin gabadh qurux badan oo inkaar qabtaa heshay dabeetana intuu isagu is yidhi ahlu sunnaa ku soo dar ayaa isaga khawaarijta ku dartay to imtixaanada waxaa la yidhi maalin buu aada u eeg isagoo cabbaar eegayay aragtay markaasay tihi labadeennuba ahlu jannahaynu ka mid markaasuu wuxuu yidhi oo yaa kuu sheegay inaan ahlu jannaha ka mid nahay si aad ku ogaatay waxay tidhi dee adigana anaa laykaa siiyey buu yidhi ayay leedahay adigana anaa laykaa siiyey dabeetana fa shakarta markaa ahlu jannaad ka mid tahy yani gabadh qurux badan baa alla ku siiyo nicmadii alla ku siiyey baad ilaahay ugu mahadnaqday dabeetana saasaa tahay oo shaakir baa tahay bay tidhi anigana bay tidhi adaa ilaahay igu kaa itixaamay nin foolxun buu ahaa adaa ilaahay igu kaa itixaamayoo fa sabartu bay tidhi anna waan sabray dabeetana labadeennu midna saabir weeyaan bay tihi midna shaakir weeyaan oo ahlu jannahaynu ka midna gabadha tan quruxda badan leh cimraan ibnu xataan iyadaa ka tuurtay inuu ahlu sunno ahaado oo u saartay inuu noqdo maxay khaariji inuu noqdo min alkhawaarij inuu ka tirsanaado idan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay gabadha afar baa loo guursadaa maalkeedaa lagu guursadaa adoo hunguri kaa hayo xasabkeeda iyo reerkay ka tirsantay iyo staatuskeeda ayaa lagu guursadaa quruxdeedaa lagu nebigu wuxuuna leeyahy calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati diini taribat yadaak ta diinta u saaxiibkaa guurso gabadhana sidoo kalea la yidhi ragga inaanay dumarku kala aqoon bay u badan yihiin laakiin weliga waxaa la yidhi hadduu kuu yimaado caman tardawna diina wa khuluqa midaad diintiisa iyo akhlaaqdiisaba raalli ka tihiin waxaan uga jeedaa meesha tan saaxibku raadka uu samayn karaa waa kaa saaxiib fiican haddaad leedahayna jannaduu kuu hoggaamin karaa saaxiib xun ama saaxiibad xun haddaad leedahayna naarta xaggeeduu kuu hoggaamin karaa cimraan binu xataan isba waxaa khaariji ka dhigay waa gabadhaasi xun ee khawaarijta ka tirsanay idan ikhwatii fi lcaqiida waxaa aada u habboon qofku cidduu la saaxiibayo rag iyo dumarba inuu ilaaliyo inaad isku dayda inaad dooratid mid muuqaalkiisu uu ilaahay ku xasuusiyo